24 maalmood kadib markii dadka Kenyaanka ay u dareereen goobaha codaynta oo ay ku soo doorteen hoggaan cusub ayaa maalintii shalay ahayd waxaa dalka ka dhacay taariikh kadib markii dadka Kenyaanka ay soo dhaweeyeen golayaasha cusub ee baarlamaanka iyo aqalka cusub ee senatarka kuwaasoo loo dhaariyay xilalkooda kala duwan isla markaana la doortay gudoomiyaasha golaha senatka iyo baarlamaanka ugu horeen aqalka senatka kadib markii la dhaariyay madaxda senatarada ayaa waxaa la aaday goobtii ugu muhiimsaneed oo ah doorashada gudoomiyaha aqalka sare ee senatka iyadoo tartan culusna uu ku dhaxmaray isbahaysiga Jubilee iyo Code kuwaasoo u hanqaltaagay jagadaas muhiimsan isbahaysiga Code ayaa waxa uu jagadaas u soo xulay gudoomiye ku-xigeenka hore ee baarlamaanka hoose mudane Faarax Macalim halka Jubilee ay soo xuleen mudanihii hore ee Turkaanada dhexe Mr Ekwe Ethuro 67 senatar ayaa hawshaasi codaynta ka qayb qaadatay iyadoo wareegii koowaadna Faarax Macalin uu helay codad dhan 31 halka Ekwe Ethurona uu helay 35 balse labadooda dastuuriyan qof ku guuleystay malaha 45 cad midaasoo ku qasabtay in wareegga labaad loo gudbo iyadoo dastuurkana uu ogol yahay in wareegga labaad tirada codad lagu kala guuleysto taasoo isbahaysiga Jubilee ay ku guuleysatay afayeenka baarlamaanka sare isbahaysiga Code lagaga guuleystay natiijadana waxa ay kala ahayd Faarax Macalin oo helay 29 cod halka Ekwe Ethurona uu helay 38 cod dhanka kale baarlamaanka hoose ayaa waxa isna ka dhacay tartan culus iyadoo Kenneth Marende oo ay soo xuleen isbahaysiga Code uu kaga guuleystay Justin Muturi oo ay wateen isbahaysiga Jubilee waxyaabaha dadka Soomaalida dalkan Kenya ku dhaqan ugu naxdinta badnaa ayaa waxa kamid ah Faarax Macalin oo lagaga guuleystay afayeenimada aqalka sare ee senatka dhinaca kalena Cabdiqaadir Aadan isagana lagaga guuleystay afayeen ku-xigeenimada aqalka hoose ee National Assembly-ga si kastaba ahaatee Jubilee ayaa ku guuleystay gacan ku haynta labadan aqal oo ugu awood badan dalkan Kenya taasoo macnaheedu tahay madaxweynaha la doortay inuu sharciyadiisa ku meel marin doono isagoo lagu gacan seerin balse isbahaysiga Jubilee taariikhda ay dalka ka dhigeen ayaa ah in iyagoo laba xisbi ay isfahmeen oo xisbiga TNN uu qaatay afayeenimada aqalka hoose iyadoo ku-xigeenkiisana loo qoondiyay xisbiga URP halka dhinaca kalena aqalka senatka xisbiga URP uu la wareegay gacan ku hayntiisa iyadoo xisbiga TNN loo qoondiyay ku-xigeenkiisa parliamentary setup given the fact that we are entering a time when we have to implement our constitution fully through devolution. And also, in my opinion, I feel that this group of members of parliament and even senators, they will understand their responsibility and they have to learn quickly. You have a new constitution that we need to implement, and that constitution will naturally change Kenya for good. isku soo wada duduubay saxaafadeed maanta ka soo baxay xafiiska taliyaha guud ee ciidanka booliska dalkan Kenya Mr David Kimayo ayaa sheegayso in booliska ay war ka hayaan in hay'adaha aan dawliga ahayn iyo dad kamid ah shacabka dalka in ay qaban qaabinayaan mudaharaadyo maalinta Sabtida oo taariikhda ku beegan tahay 3 bisha saddexaad kadib go'aanka maxkamadda sare ee dalka ay ka soo saari doonto muranka doorashada madaxtinimo ee dalka doorashadaas oo Raila Odinga uu ku andacooday in lagaga shubtay codad taliyaha ciidanka dalka Mr David Kimayo ayaa ciidanka booliska ugu baaqay inay feejignaadaan maalinta birita ee Sabtida taasoo maxkamadda sare ee dalka ay go'aankeeda ku gaari doonto cid ku guuleysatay doorashada madaxtinimada ee dalka isagoo taasi raacay in laamaha ammaanka ee dalka ay tallaabo ka qaadi doonaan cid isku dayda inay rabshado kiciyaan booliska dalka ayaa sidoo kale mamnuucay mudaharaadyada ay dadweynaha doonayaan inay maalinta birita ay sameeyaan iyagoo booliska sidoo kale sheegay inay sharci ka qaadi doonaan cid isku dayda Ciise Xaji Cabduul Home Cable TV Nairobi.